madasha aqoonta magaalada Kismaayo dadku waxay aaminsan yihiin in ay ka hor imaanayso nidaamka dawliga ee Soomaaliya ka socda waxa la leeyahay waxa dib loogu celisay qaabkii hogaamiyaha xeer adar warkaasi waa hadal meel waaye weey madashu dastuurka ku qoran tahay dastuurka ma kana horta Soomaaliya dastuurkeena ku qoran tahay in dawlad goboleedyadu ay yeelan karaan madal ay heshiis ku yihiin u shaqeysa federalismkii oo dhabta ah oo hirgalay weey madashu aan ma adeer macaane federalismkii oo hirgalay weeye dawlad goboleedyadu Soomaaliya dastuurkeedu laba heer dawladeed weeye waa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu waxay leeyihiin waajib waxay leeyihiin dastuuriya waxay leeyihiin mas'uuliyad saaran oo ay la rabo inay gutaan dastuurkeena ku qoranta inay soo imaan karaan ayaga dawladda xan inay soo imaan karaan sanadkiiba laba jeer dastuurkeena ku qoranta walaalkayo midada kale adeer dalka Soomaaliya dawladda ma xukunto kaliya dawladda xamar bay ku kooban tahay saan sheegnay hadii la aado hiil weynana waxa ka tirsan tahay Hirshabeelle الجزيرة waxaa ka tirsan tahay South West dalka dawlad goboleedka gacanta ku haya mas'uuliyad baan laga saaran taas ayaana nafaraysa in aanan cidna magan ugu noqon cidna aanan u hoos imaanin wixii dan ah oo ay dawlad goboleedyadu ay leeyihiin ayadoo dastuurka aan dhowrayno dawladda dhexna dawladdeedu way anaga soo dhisanay Soomaa halkaana ka dooranay xildhibaanada madaxweynaha anaga dooranay inay shaqeyso oo hirgasho oo ay horseed fiican noqotana annaga rabnaa mudan madaxweyne waxa jirtay 22 Oktoobar warqad maanta barnaamijka aad loogu baahiyay oo leeyahay wasaxaafada ay soo saareen madashu oo dawladda federaalka lagu dhageeyo dabcan dhinaca federaalka marka warqadaasi maadaama ay gudoomiyeen golaha iskaashiga iyo daliil ma aha adeer anagu waxaan rabnaa hadda Soomaaliya waxa u fadhidaa murugo iyo dib dhacday 400 oo qof ayaa dhimatay intaas oo qof oo kale ayaa dhaawacantay marka anagu waxaan ka digaynaa waxa weeye iyadoo ay taas jirto in laga shaqeeyo waxaan saxayn maxay tahay in faragelin lagu sameeyo dawlad goboleedyada hebel baa la ridayaa oo la tuuraya hebel kale la tuuraya waxaas wax sax ma aha waxa waqti badan baa ku dhumay energy badan baa beesha caalamka iyo Soomaaliya iyo dawladdu ay gelisay dawlad inay dhismaan waxa la rabaa marka in la bari taaro waxa la rabaa in la taageero dawladda dhexe waxa laga rabaa dhaqaale inay ku taageerto fikir ku taageerto inay dawlad dhismaan majuuf noqdaan hirgalaan baa la rabaa laakiin lama rabo in la carqaladeeyo anu magaceeda ka shaqeynaysa waxa laakiin lama rabo in la carqaladeeyo la shideeyo inta way waxa laga digayaa dawladana dhaxana waxaan ugu baaqaynaa shida ma jirto adeer anna shida ma wadno in la isu yimaado la wada hadlo wixii concern oo dhib ay qabaan dawlad goboleeduna ay sheegtaan dawladda dhaxana hadii wax tirsanayso ay sheegato la isu yimaado awad hadallo aanu heshin wax dhib kale oo jiray ma jiraan